maamulka gobolka Gabil oo horkacaya barasaabka gobolka ayaa waxay saaka deeq isugu jira raashin iyo shidaal ku wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga Somaliland. Deeqdan oo loogu talagalay in lagu taakuleeyo ciidanka qaranka Somaliland ee ku sugan jiida hore Tukarraq. Waxaana deeqdani kala wareegay maamulka gobolka wasiirka gaashaandhigga Somaliland Ciise Axmed Yuusuf, waxaana goobjoog u ahaa wasiirka tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta, wasiirka xigeenka amniga, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, gudoomiyaha degmada Togwajaale iyo mas'uuliyiinta heer gobol ee Gabiley. Waxaana ugu horeynba deeqdani faahfaahin ka bixiyay maamulka gobolka. halkan maanta waxaan ku wadnaa 4 gaari oo raashina oo ay tamo kala duwan ah iyo 3 booyadood oo shidaal ah oo 42 litir isugu jira cadadka lacageed la soo galiyay waa ilaa $80,000 isbarbar istaagayaas wuxuu yahay muhiimad gaar ah anaga noo leeyahay inaanu ciidanka qaranku halku nagaga yaalo aanu ognahay. waxaanu filaynaa intaas inay tahay hordhac aan ugu talagalnay ciidanka qaranka aanu ku taageerayno kuna barbar istaagayno. mar labaad waxaanu maanta halkan ku wareejinaynaa gobol ahaan deeqdii labaad ee ciidanku inta ay Tukarraq ay ku ruqaansadeen ay degmadoodii iyo xadkoogii runtii ay gaadheen uu gobolku ku wareejiyo. deeqdii hore reeshiliyo xoolaba isugu jirtay. maantana halkan waxaan ku wareejinaynaa deeqaadu ballaaran. waxaan idinku hambalyeeynaa ahaan reer Gabiley niyad samida iyo kalsoonida iyo taageerada ay u hayaan ciidanka qaranka meel kasta joogaba. waan idinku hambalyeeynaa. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga waxaa leenahay haddaan nahay dadweynaha reer Gabiley intaad maanta arkaysaan iyo in kale waan soo wadnaa mar walba aan garab taaganahay. maanta waa intii aan meesha joognay ee taakuleynta ka shaqeynay 2 week baa ahayd. waa maalinta noogu farxad badnay. gobolka Gabiley ayaa taakuleyn mug iyo miisaan farxsanay halkan macnaha taakuladan inta leeg ka timi gobolkan Gabiley dadku haduu isabaabulo oo dareemo muwaadinimada iyo waxay tahay qaranku wuxuu ka mudan yahay waxa ka dhashay hadiyadan intan leeg. degmada Gabiley ma aha markii koowaad ay la qaybsato ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee ku jira dagaalka furunta hore taagan taakulo oo markii labaad markii horena waa ka dheereeyeen dadka waa ka mug weynaan waxay keeneen. Farxaan Cabdi Ciise, Honkable TV, gobolka Gabiley.